السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر هذا برنامج أنو كجا هذي دونو دلايدي وجوا وينا الدنيا الصومري أو كم دي هاي نكن لهم مجعبو إدمان إيميل كامبا ninkan dilaaga ah ee lagu magacaabo Edmund Emil Kamba waxa uu u dhashay dalka Mareykanka waxaana uu u dhashay taariikhdu markii ay ahayd 18 December 1948 ninkan dilaaga ah waxa uu gacantiisa ku khaarajiyay ama uu ku dilay 10 qof oo kamid ah dadkii ugu dhawaa noloshiisa isagoo dilalkan kala geystay sanadihii 1964 1972 iyo 1973 waxaana uu adeegsan jiray dilalka uu geysto xabad ama faash laba ugu kala goyn jiray cidda uu markaa doonayay inuu nolosha dhaafiyo aynu wax yar ka soo qaadano noloshiisii hore markii uu yaraa waxa uu ahaa wiil yar oo aad u qalqaali ah isla markaana dad badan ay ka soo ashkatoodaan iyagoo ka gacanaya dhaqan xumo oo kula kacay iyadoo ay hooyadii markasta diri jirtay isla markaana ay ciqaab uga dhigi jirtay inay qol madow oo cidla ku xidho halkaasna uu saacado badan ku xidhnaado intaas wixii ka dambeeyay isagoo aad u daayar ayaa waxa uu bilaabay kufsi iyo inuu xayawaanka laayo isla markaana uu dhibaatooyin badan abuuro 15 jirkiisii waxa uu ku biiray oo uu ka mid noqday koox maafiya ah maalin maalmaha kamid ah oo taariikhu ahayd 27 August 1964 waxa uu toogasho ku dilay ayeedii oo miiska cuntada dul fadhiday isla markaana cunto cunaysa daqiiqadeer ka bacdi waxa soo galay awooga oo isna sidiisa leeg bastoolad ku dhuftay inta wixii ka dambeeyay waxa uu la hadlay hooyadii una yeedhay isagoo u sheegay waxa uu sameeyay waxaanay hooyadii ku qasabtay inuu isdhiibo oo booliska waxuna sheego inuu dil geystay waanu fuliyay daqiiqadeer ka bacdina waxa la xiray isagoo su'aashii ugu horeysay ee la weydiiyay ahayd sababta uu awoogii ayeedii u dilay waxa uu ku jawaabay waxaan rabay inaan arko waxaan dareemayo markaan labadooda bedelo waxaana halkaa ka yimid shaki weyn oo laga shakiyay meelqabka Master Kamba iyadoo oo la geeyay dhakhtar jeelka ku dhex yaala oo ku takhasusay arrimaha cilmi nafsiga baaritaano badan oo la sameeyay waxa la cadeeyay inuu maskaxiyan u xanuunsanayo waxaana halkaa lagu daaweynayay muddo 8 sanadood ah markii dib loo baaray lana ogaaday inuu caafimaad ayaa dib loo soo daayay isagoo dhaqdhaqaaqiisa la socdo kadib waxa uu shaqo ka helay maamulka gobolka magaalada California gaar ahaan waaxda howlaha guud isagoo in muddo halkaas ka shaqeynayay inta ka bacdi waxa uu dib u bilaabay inuu si qarsoodi ah dadka u dilo isagoo intii u dhaxaysay sanadkii 1972 ilaa 1973 nolosha dhaafiyay 6 qof oo kale oo ay ku jiraan 2 hablood oo arday ah oo uu qiyaamiyay isagoo hadallo iyo ficilo been ah u sheegay kana dhaadhiciyay inuu dalxiis geyn doono ka bacdina uu kaxeeyay meel miyi ah halkaasina uu ugu geystay kufsi isagoo markii dambana toogasho iyo faash ku dilay dhammaantood dadkan uu laayay ayaa noqonaya dadkii noloshiisa ugu dhawaa waxaanu inta badan dadka uu dilo ku tuuri jiray meelaha biyo mareenada ah amaba wuxuu ku aasi jiray kaymaha isagoo aan ka tagi jirin wax raad ah waxaana gacanta lagu soo dhigay taariikhdu markii ay ahayd 24 Abriil 1973 isagoo isla sanadkaasi xabsi daa'im lagu xukumay